waxaynu soo dhaafnay adduunka leeyahay falsafadii fara badnaa nin waliba adduunka leeyahay ilaahayada sheeganayay ay caabudayaan haddaba waxaasoo falsafad ahaa waxay adduunka leeyahay xaawilayeen inay adduunka ogaadaan adduunyada tani aynu arkayno cidda ka dambaysa iyo halkay ku dambayn doonto in ogaadaan ay doonayeen walina waa kuwa haddima xidigaha basharku u baxayee laga doonayo cid haddii maka leeyahay ku nool aba ay doonayo dhammaantood way ku fashilmeen mana ogaan karaan ilaahay cilmil qaybkiisaas wax bashari ma kari karo ma ogaan karo oo daciifi ilaa haddii maka leeyahay danni iyo haddii maka leeyahay male ay malamalaynayaan iyo khayaalaad ay haddii maka leeyahay isugu sheekeeyaan jinka iyo shayaadiin aljin walins sida ilaah ku yidhi qowlahu tacaala shayaadiin alins waljin yuxuuna bacduhum ilaa bacd sukhra fi lqowl hadda haddii maka leeyahay suuratu ancaam 112 been bay isku qurxinayaan isugu warramayaan oo kala rumaysanayaan aayad kale wuxuu yidhi in tutic aksara min fi lardi yudilluka can sabiili illah inama liyadunnu way malaynayaan haddaad raacdo kuwa haddii maka leeyahay dhulka haddii maka leeyahay jooga intooda badan way ku habaabinayaan dariiqa toosan ee xaqa ay kaa duwayaan baa layidhi waxaana ku socdaan haddii maka male iyo haddii maka leeyahay been ay isu sheegayaan marka waxaasoo haddii maka leeyahay falsafaad ahaa iyo waxaasoo diina ahaa iyo waxaasoo madaahib ahaa ayaa nebigu haddii maka leeyahay loo soo diray oo u yimi oo dabeedna lagu yidhi haddii maka leeyahay waddada xaqaa kusoo hanuuni taas dadkaasoo wada wareersan oo halloobsan ayaa ilaahay khaaliga u soo diray maxamed alayhi salatu wasalaam si uu ugu hanuuniyo ciddii abuurtay ay garan lahaayeen iyo wixii loo abuuray iyo halkii ku dambayn doonto adduunyada tanu iyo ilaahay abuuray manhajka uu ka doonayo dariiqa haddii maka leeyahay doonayo inay usoo maraan uu jecel yahay ee raalli gelinaya taas ayaa haddii maka leeyahay dabeedna wuxuu nabiga la yimi qur-aankaasa haddii maka leeyahay loo soo dhiibay marka wuxuu ku yidhi nabigu alay salaam dad yahow waxaan idiin sheegayaa waxyibaa haddii maka samada iga yimaada qur-aanka idinku akhriyayo waa hadalkii ilaahay haddaad rumaysan weydaan bal idinku balla kaalaya haddii maka leeyahay aayad qurahoo la mid ah ama suurad la mid ah balla kaalaya buu yidhi marka dee may la iman karin way waayeen dabeed sidaasu dabeed nebigu haddii maka leeyahay igu soo ogay xujo qur-aanka ah daliil inuu haddii maka leeyahay xaq yahay waxaana haddii maka le u sheegayaa waxaanay ku dhaqmayaan ay rumaysteen ay ku socdaana inay baadil tahay ayaa qur-aanku haddii maka leeyahay ku beeneeyey xaquna uu yahay kaa nebi maxamed uu u sheegayo dabeedna laba asal ayaa haddii maka leeyahay diintaas ku samaysan tahay oy ka bilaabmaysaa labada asal baana haddii maka leeyahay nebiga lagula dagaalamayay asalka hore waxa weeyaan asalka tawxiidka macnaa waxa weeyaan laa ilaaha ila allah kaa haddii maka leeyahay abuuray adduunyada abuuray ku yidhi waxaad ku tidhahdaa waxa weeyaan rabbukin rabu samaawaati walard wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniin buu laa ilaaha illaa huwa yuxyi wa yumiit rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin waa suuratu khan 7 ilaa 8 rabbiginu waa rabbiga abuuray samooyinka iyo dhulka haddaa garanaysaan buu yidhi mana jiro ilaah
asaga mooyaane asaguma waxna dilaa waxna looleeya waa rabbigiin iyo rabbigii aabbayaashii horeba ka abuuray weeyaan ee abuurta iska leh cid la leh aana jirin marka way qireen rabbigaas inuu hadimka ilaahay la abuuray ilaahay abuuray way qirsanaayeen waxay yidhaahdeen markii la yidhi weydii ayagaba yaa idin abuuray waxay yidhaahdeen qawlahu tacaala ilahi wuxuu yihi qul waxaad ku tahay man yarzuqukum min asamaai walard aman yamliku samca walabsaar waman yakhruju xaya min almeyt ويخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم ما ربكم الحق وما بعد الحق إلا الضلال فأنا أصرفون له وآية كانوا حيوان سورة يونس قوم يصدون الله صدح الصدور ويقرين وحيدا هدمك إلهي ربك وكادمك إلهي سمويك هدمك إلهي أبوري هدمك إلهي يدرك markii la yidhi samciga iyo basarka dhegihiina iyo maqalka yaa leh waa ilaahay bay yidhahdeen yaa murta dabera adduunyada maamulkeeda waa ilaahay bay yidhahdeen waxa lagu yidhi kaas waa rabbigiina xaq ahaa xaqaa waxa u weydaarataana waa baadi weeye marka asalkaasu waxa weeyaan ilaahay laa ilaaha ila allah weeye laa ilaaha ila allah ilaa kaliyana u jirin kaa qira weeyaan markaa ilaahay kaa iyagoo saa qirsan haddana intaasu may gelinin islaam may gelinin maxaa yeelay saddex tawxiidku waa saddex ayaa laga doonayaa tawxiid aluluhiya iyo tawxiid alrububiya iyo tawxiid alasmaa wasifaat saddexdaa weeye kaas ay qireen islaamku may noqonin tawxiidkaas rububiyada in badan oo aayadka qur-aanka sheegayana way jiraan marka tawxiid al asmaa wa sifaat ilaahay sifihiisa iyo haddimka ilaahay afcaashiisa iyo haddimka ilaahay waxdaaniyadiisa inaanu cid la midi jirin oo ilahay haddimka ilahi subxana wa tacaala cid kula shuraakiyi jirin ku sifoobay wanaag oo dhan xumaan oo dhan ka nasahan yahay ilahay haddimka ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa bismi illahi raxmaan raxiim qul huwa allahu axad allahu samad lam yelid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ilahay haddimka ilaahay inuu kelidii yahay oo daatadiisa waxdaaniyadiisa gooni u tahay iyo sifihiisa iyo haddimka ilaahay asmaadiisa kullu cid la lihaani jirin ka haddimka ilaahay loo doonto haddimka ilaahay khalqi haddimka ilaahay u baahan yahay o dhan ay ka helaan khalqi o dhan ku noolya weeye in cidna u baahnayn isagu ee loo baahan yahay cidna ma dhalin oo waalid ma la waladna muu dhalin oo waalidna ma jiro wax la walaalina ma jiraan sida qaar haddimka ilaahay ileeyihiin qeyb ka mid ah wejkiisa laga abuuray maxamed intaaba wuxuu ku jaray suuraddan ku jiray iyo aayad kale odhanaysa laysa kamithli shay huwa samiicu lbasiir suuradda haddimka leeyahayna suura 11 ilaahay waxa weeyaan wax la midihi ma jiro walaa ficilkiisa walaa qowlkiisa walaa daatadiisa ninka yidhaha cid baa haddimka la midihin ama cid buu dhalayna kufrigu waa kufri marka qiristaa u qiray ilaahay una abuuray samaaidka abuuray marka muslimnimo ku noqon maayo taa waayo kama ka kufrisan yahay waxa weeyaan qofkaasi mashirku waxa weeyaan nin ilaahay aqoonsan oo inuu abuuray u aqoonsan yahay laakiin wuxuu leeyahay haddii hebel buu sii marayaa oo cid buu ku wasta ka dhiganayaa oo leeyahay ama uu dhalay ama uu jecel yahay wasta ka dhiganayaa kaasi shirkigu halku ka imanayaa waa halkaas weeyaanoo ilaahay wuxuu aayad qur-aana walaa yuuminu aksaruhum billah ilaa hum mushrikuun khalqiga haddimka leeyahay intiisa badani ilaahay ma rumaynayaan ilaa ayagoo sharig yeelaya mooyaane shirkigaas macnihiisu waa kaasun waa ilaahiyo hebelow baad ku shukriyaysaa ama adigii dhaartaad ku dhaarato ilaahiyaa
إلهي النبي أذكر دارته لماذا إلهي كلي يكون داره لكن نبي قال رعن مركا ولو تعالى وحكم الآيات كاتك ولها أسماء الحسنى فادعوا بها وذريحون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وهي سورة العرف قول يصدر الكائن وجهه بالله توفيق بنات أقول كشري قيبتي هذه من التوحيد توحيد الأسماء والصفات هاس وهذا كله لو وحيد إلى الأسماء دي صفات كيسة إنه خالق هي قال تعالى إلى وحيد والله الخالق البار المصور له الأسماء الحسنى سبح ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو يان أفريو لباتن سورة الحشر أي إلهي سبحانه وخالق كل دي بخالقة وحبورة باري ويان المصور كل وحصوره ويا سود رقف البصورية كسمية وحلي أسماء وناكسن وهذا كله في عم بلي هي وهو تصبح صدا وهلا له سماء كشرة يو بلكا وركوم مشركين تهين وأنا هذا كله هي كهذا قالب كعد كقالب شرين وهو تو سماء يعني حكمة كوديكا كسمية أن سبحانه وتعالى وحلي قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وهي لا كبر إذن أسماء ذا أما الله يا الرحمن رحيم مكعدا وانا سنبول هي لا كبر يويه وحكا لا كبرينا ساعات كلام انت واصور في السراء وقال طبعا هذا الكلام كله ولها الأسماء الحسنى فادعوا بها وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أصور سورة مثل عراف قول استيت مقعدي سهل كبري وحكا كبرينا عد كان هو صوص سننا لا يحول هذه مثل يكبر يبون يتكاجيبي يعني ولا يجيبي بدون واسطة مركا كوا هذه مثل يحولي كتجا كوا إله اسمه ديسه بدلية قلوعينية وحكا لا إله كبرية ونكابل مرد دونا بركوا يا ويرك دونان وحكو دعا مركا إلهي يدمك إليه سبحانه وتعالى وصحويا معنى لا إله إلا الله هي يدمك إليه سوكو بس هاي تاسو معناها كلا أسألها كلا وحويا وطريقة توحيد إن طريقة الأمر أيوه وكم القرى يهي ما القرى إنه يهي ورد وحده فلا يحكم في شؤون ناس غيره إلى هذا كعد كلا حكومة يسا وهو أمر يسا وحلال وحرام حرامتين يسا ما تشرو ما تشران يعني وحكى لا إله إلا عابدي أنا ما تشران يعني قوله تعالى إلى يحيي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن يقيموا دون دين ولا تفرقوا فيه كبر على المسكين ما تدمه إليه وسورة تدمه إليه شورى صدح يطمن شرعي وحلا إذن كدقي وحيا أدمه إليه النبي نوح إلى النبي آدم أدمه إليه لو يري شرعي وها يا كان نلحق هو حيوني دين تان هو حيوني يا إبراهيم يا موسى يا عيسى دين تان أدمه قوم باللي مركا كبر ويكون انتهي على المشركين ما تعملي توحيد كان لا إله إلا تكلي لو يريو مشركين تادي ما يكون عدكتي ما يليان كاسو نقول ساسا لا كل دبرنا فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تبع هواهم وصلت سورة وادم يعني سورة اللفتة سيدا كودقر وهالكاي استقسم شرعي قال لقول ديبي هنا الحين هو ذا ديو ربيتان كودن يا إلهي ذا بدنا يهدم قليه وشيء
راعي مالي مركا شريعة كاملة أو وحكد من شر أيا لو سودي برسولك أو لو لا كنا ما وحنا هكذا منا وحنا كورنا سيرات كانوا كيري فاستقم كما أمرت وما تابع معك ولا تلقوا إلا بما تعملون بصير وسورة هود قال يا لبيتهم فاستقم شرع لقوه يودي كما أمرت سالوا قول أمري هذيك وما تابع معك يكون كسر رعي يشترك كتوبات كاني ولا تلقوا كحد قد مالي الكا حبا كورين وحنا كنا قسنا إنه بما تعملون بصير إلى هو أوجي هي واحد يمكن يسمعين إنسان مركاني كي كحد قد بينك وكذا ما بقى ولا قابل برين طونه حدود كذا فين بين حدود كذا مركا نبي كنا ولا لقوا أمري الحين لقوا أمري ولا لقوا أمري وياه نكيد ده بني ده طريق كلام مريا سجارة توقف فرار سمي تضباطن نبي وحلايد وين صدق تضباطن وخلنا في مدن صدق تضباط طريقة فلانية طريقة القادرية طريقة الأحمدية طريقة التيجانية وكم يا طريقة وحصلنا بالي من القرى وطريق قرى نبي وحلايد قال مت قرى كناجية مت قرى إذا كناجية وحصل طريق واتبع ليدو أنا جو أصحاب ثال كانوا مرة عدة مرتبور أنا صور عظم إن حاجة تونا قبيل سلا مركا وحكلاه أديم كله إن مال كله طريق كله نكمرة إيه طريق فلان بان مري وحلا حلقة قبل يمينه طريق وحويان طريقة محمد رسول الله وطلع محمد الله شيء إيه لا نقامري وطريق أصون وحكلاه إلهي لو قدوان كرا أو لو عابد كرا أو لو بري كرا مشوا وحلا الحكي لو رافابا وباطل لماذا أسويين لا إله إلا الله محمد رسول الله لماذا أسوون بعدينتو فروع الخبا حيصير مركان مشرينتي عرفت وحي هاي انت سو بقول بقى إلهي بعابدني حرب قا حصلنا صدح بقول يو لحدا سنم وأنا كشيء إنه ملائكة إلهي وملائكة أبلي إلهي ويبري إنه إلهي بينو كشف عين إلهي مركا يقولوا لا إله إلا الله كليه وحي هذين ولا يابين وكوا يري أجعل آلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب إليه ما إلهي يرمو إلى قرى كصور ربي إن هذا لشيء عجاب وحلال يابيدهن وحلال يابو ويابو وعقل يدهن مركي لا إله إلا الله قوله تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أين لتارك آلهتنا شاعر مجنون ويكك تكبرين إن لا إله إلا الله وحنا يكون هذه ما إلهية ديتني هي نقتلنا نقباقا أولا بينها ساسي يكون دعوية إلهي يقول سبحانه وتعالى كردي لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان رب العرش عما يصفون وعيدي هذا سيشاقيان إلى هذا بدنا هذا بقول شاقيان هذا يشران الدنيا دبا سنة ما سنتين سنتين ما بسنتين واحد يمكن هي ولا سوق بسلها صومال واحد قال من كذا ثالثي أي نعيبون من حاجة ودرين وأنا من حاجة ودرين حاجات كذا بدنا ويكون ماشيين ساسا الدنيا اللي بيها هنا وقشين مركا تاسو كذا جوابي وعي كل يلهدين أن قوله تعالى والذين يدخلون من دون أولياء ما نعبدهم إلا لقربنا إلا سلفا إلا يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إنها لا يهدي من وكاد من كفر وسورة الزمر آيات صدحات وحي لهذين أولياء أن عابدينه وحن عابدينا إن إلهي نور دويان يعني عابدينه وإنه شفيعان آيات كلنا ويلهدانه مركا إله جوابي قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله ولا تنبئون الله بما يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وسورة يونس هي يكون آلهتهم يا أصنامتهم يا أولياءهم يا من وقش فعيانو قديم قال نور دوين يعني أيوة إحنا ويري إحنا ترين إلهي يقول ما واحد إذا كيف يدك إلهي وقوى رمية قال قديم قال الملائكة وسمى الجوجة كشفعة يا غير أولياء ودك جوجة كشفعة ما يدك وش يجيه يا إلهي وكان هاي كيف هي كيف كسر يا كوا قديم قال إلهي
ugu nusbaynayaan ee ilay ilahay bay kasoo shafaacayeen tuwa ilahay wuxuu ihi waxaad ku tidhaahdaa qul laa shafaacatu jamiican shafaacada isagaa iska leh kelidii isagaa mulkiya cid la dhihi ma jirto ninka shafaaci qaadaana ma jiro haddii marka leey cid haddii marka leey uu ogolaado mooyaane cid uu ogolaado oo ka loo shafaacayaana waa kuwa raaligeliyey ka shafaacayaana waa ku idmay oo isagu u amray cid kale oo ka shafaaci kartaa ma jirto saas weli kaga jawaabay waxa ayagu idmay sheegayaan ay leeyihiin haddii marka leey kuwaasay ilahay noogu shafaacayeen halkaa inoo jawaab bilahu tawfiiq